shirkadan ayaa dadka waxay iga iibsanaysaa wejiyadooda. Wejigaaga waxa laga iibinayaa $380 oo lacag ah. saaxiibayaal soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad. waa barnaamijkeennii aan uga hadli jirnay mid ka mid a dhacdooyinka ugu yaabka badnaa ee dunida daafaheeda ka dhacay asbuucaas ama asbuucyadaas lagu jiro. asbuucan waxaan haynaa dhacdo yaab leh. shirkadda ayaa waxay doonaysaa in ay kaa iibsato wejigaaga. wejigaaga caadiga ah ayay rabta inay kaa iibsato oo ay lacag kaa siiso. bal ka warran haddii berigii hore la iibsan jiray wejiyada dadka caanka oo keliya, hadda shirkad ku taalo waddanka Japan ayaa maanta haddeertan waxay diyaar u tahay in ay iibsato xuquuqda iyo copyright-ka wejiyada dadka caadiga ah sida adigoo kale iyo anigoo kale. wejiyadeena ayaa si caadi ah loo iibsanayaa. shirkaddan ayaa dabadeed markii ay wejiyada xuquuqdooda iyo copyright-kooda iibsato waxa ay ka dhigaysaa maskaraati caadi ah oo ay suuqa soo geliso, qof walbana uu iibsan karo uuna xiran karo. yacni sidee ayay shirkad wejigayga u iibsanaysaa aniga? waxay igu samaynaysaa talow ma wejiga ayay intay iga goyso ayay qaadanaysaa, ma surka intay iga goyso ayay wejigayga kala baxaysaa? yacni wejigayga igu yaalla sidee ayay shirkad u iibsan kartaa? waa su-aal isweydiin mudan, idinkuna isweydiinaysaan. shirkaddan ayaa waxa ay keentay oo ay bilowday mashruuc ay u bixisay Thatface. mashruucan ayaa waxay ku iibsanaysaa xuquuqda iyo copyright-ka wejiyada dadka. wejigaaga caadiga laga iibsan mayo ee wejigaaga xuquuqdiisa ayaa laga iibsanayaa. yacni wejigaaga sawirkiisa iyo qaabkiisa ayay qaadanaysaa shirkaddu oo waad ka iibisay, dabadeedna waxay ka dhigaysaa maskaraati caadiya oo suuqa yaalla oo qof walba iibsan karo uuna xiran karo. waa wejigaaga caadiga ahaa. yacni waxay ka soo saaraysaa maskaraati caadiya oo qofka haddii uu xirto aan la kala garanayn inuu wejigaaga yahay iyo inuu weji qof kale yahay. yacni haddeertaan dee adoo halkaa taagan, shirkad hadday soo saarto maskaraati wejigaaga ah adoon u ogolaan oo aan u fasixin oo aan ka iibsan, dee waa khalad. waxaad leedahay wejigaan anigaa leh, ma ogoli inuu qof kale xirto. wuxuu rabo ku samayn karaa, dembibu ku samayn karaa, wuxuu rabo ku samayn karaa, ma ogoli inuu xirto. laakiin markan waa lagaa saxiixayaa, waxaad iibinaysaa xuquuqda wejigaaga oo caadiya. iyaduna waxay ka soo saaraysaa shirkaddu maskaraati caadiya oo qofkii xirta iyo adiga aan la idin kala garanayn. shirkaddan ayaa dadka waxay iga iibsanaysaa wejiyadooda. wejigaaga waxa laga iibinayaa $380 oo lacag ah. dabadeedna maskaraatiga ayay u rogaysaa oo ay ka samaynaysaa. in yar isla fahanno, wuxuu waa maskaraati caadiya oo qofkii xirta iyo adiga wejigiina aan la kala garanayn. dabadeedna shirkaddu markii maskaraati wejigaaga u rogto, qof waxa aad adigu aa lahayd wejigaaga wuxuu lahaa, haddaad dakhar lahayd, haddaad si kale ahayd, wejiga oo caadiya ayaa la soo saarayaa. dabadeedna shirkaddu waxay kusii iibinaysaa markii maskaraati u rogtay wejigaaga. adiga marka hore $380 ayay kaaga soo galatay. dabadeedna waxay kusii iibinaysaa markii ay maskaraati u rogto oo ay suuqa ku geynaysaa $940 ayay ku iibinaysaa. waa wejigaagii $380 xuquuqdiisa lagaga gatay oo halkaa yaalla ayay waxay kusii iibinaysaa $940. wallaahi waxay faa'iideen markaa $560 meelahaas. waa lacag aad u tiro badan weeye. la soco oo mar walba wejigaaga lagaaga iibsan mayo $380. laakiin shirkaddu markii ay soo saarto wejigaaga oo maskaraati oo suuqa yaalla oo dee dukaamada lagu iibinayo, haddii wejigaaga si aad loo gato oo ay dadku u bogaan oo ay dadku si fiican u gataan oo suuqa si fiican u galo, $380 lagu siin mayo. laakiin waxaa lagu leeyahay wejigaaga faa'iidada kasoo xarootay si guud ayaad waxaad ku leedahay percentage boqolley. haddii $200,000, $300,000, $400,000 ay kasoo xarooto, waxaad ku leedahay percentage gaar ah, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, wixii aduu ah shirkadda isku fahantaan. shirkadda ayaa mashruucan markii ay bilowday waxaa la soo xiriiray dad aad u fara badan oo saf soo galay oo doonaya in ay wejiyadooda iska iibiyaan. saf ayay waxay ugu jiraan in ay wejiyadooda iska iibiyaan. shirkaddu ay la yaabta, wax ay ku kala samaystaan way garan weyda iyo si ay usoo kala hormariso. dabadeed waxay tiri, war anigu idinma wada qaabili karo oo wejiyadiina ma wada iibsan karee. waxaad samaysaan, meesha ay waxaan ka dhacayaan waa Japan weeye. waxaan idiin samaynayaa qorituur, qofkii soo baxa oo nasiibkiisa soo saaro ayaan wejigiisa ka iibsanaynaa ee diyaar ma tihiin? ha ayay yidhaahdeen. dabadeedna qorituur ayaa loo sameeyey, dadkii nasiibkooda soo saarayna wejigooda ayaa laga iibsaday. qof walba wejigiisa laga iibsan mayo ee dadka wejigooda laga iibsanayo bishardi waa in ay ka weyn yihiin 20 sano. haddii aad 20 sano ka yar tahay, wejigaaga laga iibsan mayo. arrinta kale oo cajiibka ayaa iyaduna waxay tahay, ninka shirkadda iskale wejigiisa oo caadiya ayaa meel yaalla oo waxaad ka iibsan kartaa website-ka shirkadda. waxaana lagaa siinayaa $748. ninka shirkadda iskale ayaa wejigiisa iibsan kartaa, dabeedna waa xiran kartaa. yacni markii aan leeyahay wejiga ayaa la xiranayaa, ma ahan maro iyo wax yacni wejigiis uusan muuqanayn ee waxa weeye wejigii oo caadiya ayaa bay soo saaraysaa shirkaddu.
qof walbana wuu xiran karaya wejiga hadaa iibsid arrintan ayaa waxay ahayd mid ka mid ah waxyaalihii ugu yaabka badnaa ee saxaafaddu qoraysay waayadii u dambeeyey saaxiib yaal waxaan idinka codsanayaa haddii aad kanaalka hore u taxanaydeen in aad like ii saartaan haddii aad had ku cusub tihiin in aad like iyo subscribe ii saartaan waa mahadsantiin guuleysta maalin ka mid isbuuciyan waxaan kusoo gudbin doonaa kanaalka iyaga mid ka mid a dhacdooyinka ugu yaabka badan ee dunida daafeeda ka dhaca asbuucaas guuleysta